waxaa maanta garoonka Hargeysa Stadium kulan xiiso badan ku dhexmaray gobolada Xaysimo iyo Saaxil labadan xul ayaa ku wada jiray Group B waxaana ciyaartu ku bilaabantay weeraro iyo weerar celis waxaana bandhiga goolasha furtay xulka gobolka Xaysimo daqiiqadii 41aad shabaga ku hubsaday Bashiir Bashka kulankaasina ka dhigay hal iyo eber بشير بشكا وير بشير بشكا جول يا سلام فعلا qaybtii hore ciyaartan waxaa lagu kala nastay hal iyo eber oo xulka gobolka Xaysimo ku hogaaminayo qaybtii labaad ee ciyaarta markii la isku soo laabtay ee labada xulna ay la soo tashadeen tababarayaashooda ayaa waxay wax ka bedel ku sameeyeen qaab ciyaareedkii hore ay ku ciyaarayeen labada xulba waxaana daqiiqadii 11aad xulka gobolka Xaysimo uu leeyimid goolkooda labaad kaasi oo shabaga ku hubsaday mar labaad Bashiir Bashka ciyaartuna ay noqotay 2-1 guud ahaan ciyaartuna ay ku soo gabagabootay 2-1 ay ku hogaaminayaan xulka gobolka Xaysimo halka xulka gobolka Saaxil uu caraabay runtii aad iyo aad buu mahadsanyahay TV-ga qaranku marka ugu horeysa waxaan salaamayaa baxda TV-ga qaranka oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda warfaafinta runtii Salaaman Cali Koore agaasimihiisa guud iyo hawlwadeennada gabi ahaan haddaan in yar kaaga warramo koobkan sida uu socdo runtii dee waxaynu u wada jeednaa waxaan u malaynayaa goolkii labaad ayaa hadda dhashay oo dee waynu u wada jeednaaba goolkii labaad inuu hadda dhashay runtii waa tartan xamaasad leh waa tartan runtii ka duwan tartamadii hore ee ciyaaraha gobolada soo mari jiray waa runtii waxa la isu keenay dhalinyaradii dalka oo dhan 14 gobolba dee waqti dheer baa ugu dambeysay in sidan oo kale goob la soo kala awal waxaanu samayn jirnay waa la soo kala reebi jiray group baa jiri jiray laakiin markan waa la isu wada keenay runtii way ka duwan tahay waxyaabaha kale ay sanadkan kaga duwan tahay waxaa ka mid ah faartii baynu arkanaa oo runtii iyadna aynu ku soo kordhinay shuruucdii caalamka isbedelay ee runtii aynu ku soo wada kordhinay marka runtii si qurux badan buu u socdaa Maxamed Nuux agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa uu ka warramay sida uu soo gabagabooday wareegyada qormooyinka koobaad ee ciyaaraha iyadoona loo gudbi doono 8 dhamaadka koobka gobolada waxa halkan maanta aan aad iyo aad ugu hambalyeynaya halwadeennada TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ka socda oo mar walba heegan u ah inay ciyaaraha gudbiyaan iyo halkay marxaladoodu marayso waxaanu ku sugannahay Hargeysa Stadium maanta waxaynu warbixin idinka siinaynaa inay maanta soo dhamaanayaan quarter finalkii ama 8 dhamaadkii oo 4 kooxood ee wada ciyaari doona maanta 2 kooxood laga doonayo 6na ay hore u sii taagan yihiin 6da kooxood iyo 2da marka la isku daro waa 8 afka ama systemka ciyaaraha waxa la yiraahdaa quarter final kaas wuxuu inoo bilaabmi doonaa haddii aan la yiraahdo axadda bari oo sabti ah waxaanu dadweynaha ciyaaraha jecel ogeysiinaynaa inaynu fasaxnay ama nasashanahay marka haddii aan la yiraahdo sabtida fasax baynu nahay axadda ayaynu isu soo noqonaynaa ciyaaro halkan inooga bilaabmayaan waxaan halkan ka hambalyeynaya ciyaartooyadii gobolada kale ee 6da ahaa ee halka iyaguna ku tagay ee ku hadhay inay ciyaar fiican muujiyeen iyo akhlaaq iyo nidaam waanan ku hambalyeynaya waanan sagootiyeynaa ciyaaraha maanta halkan ka dhacaya waxay u qaybsan yihiin 3 qaybood ama caasimadda Hargeysa Somaliland ka dhacaya 3 event oo gobolada oo dhamay ay isaga yimaadeen weeye waxa weeyaan 1 kubadda cagta 14 gobol baa ka qayb galayay 2 orodada waxa ka qayb galayay 14 gobol 3 basketka waxa ka qayb galayay 8 gobol oo basketka leh waxaan rajaynayaa sanadada dambe ee aynu ciyaaraha gobolada qabanayno insha Allah bismillaahi kariim inay gobolada aan basketka lahayna samaysan doonaan inuu ku dhiiri gelinay una sheegnay ciyaaraheena tadawur iyo horumar bay sameeyeen waa arkaysaan bilicda iyo quruxda garoonka waa arkaysaan hawlwadeennada kala duwan sida ay u shaqeynayeen waxaan halkan ka amaanayaa mar walba wasaaradda warfaafinta iyo TV-ga qaranka iyo radio Hargeysa oo si joogto ah ciyaaraha u taminayay caalamka oo dhan gaarsiinayay waliba muuqaal aragtidiisa aad iyo aad loogu diirsado qurux badan waxa kale oo halkan ka hambalyeynaya wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidanka bilayska Jamhuuriyadda Somaliland taliyayaashooda kala duwan haday tahay taliyaha guud taliyaha ku-xigeenka iyo qaybaheeda kala duwan iyo hoggaanadaba waxay noola shaqeeyeen ciidanka bilaysku si hagar la'aaneed ciyaaraha nabadgelyadooda iyaga ka shaqeeyay heegan bay noo yihiin waqtiga ciyaaraha bilowna waa arkaysaano waqti kulul weeye marka dadka bilayska ah ee la nool asxaabta ciyaaraha daawanaysa ee mar walba ay saaxiibka inay nabadgelyadooda ilaalinayaan iyo ku ciyaarayaba aad iyo aad baan u hambalyeynaa
waxaan leenahay bilayska hal ogaado dadweynaha ciyaaraha iyo bahda isboortiga waxaan leeyahay bilayska la shaqeeya waxaan halkan ka amaanayaa guddiga farsamada guddiga garsoorka guddiga dacwadaha iyo howlwadeennada kale ee ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo xidhiidhada kala duwan ee hawshan wada xamse qurbaani warsamo cali iyo cabdiqaadir kabadhe warbaahinta qaranka Somaliland Hargeysa Stadium